kasoo hadalnay ilaahay subxaana wa tacaala inuu u qoslo laba nin oo midkood midka kala dilay, labadana jannada isku arkeen. kuwaasuu ilaahay subxaana wa tacaala u qoslaa. qosolkaasna nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam oo saadiqulmasduuqa oo afsaxu lisaaneh. wax kale iyo macno kale waa sheegi kariya, carabiguu yaqaanay, laakiin qosol ayuu ka tacabiiriyey. siduu nabigu sheegaan u sheegaynaa, khabarka nabigu soo noogu sheega aan u rumayhaynaa. intan waxaan ka gelaynaa sifatu alcajbi wadaxki. ilaahay subxaana wa tacaala inuu macnaha shay cajabiyo uuna qoslo ayaan xadiiskan kale ka ogaan doonaa. iyo wa qowluhu qowlka nabiga sala allahu calayhi wasalam, cajiba rabbunaa rabbigeen wuu la yaabaa min qunuudi cibaadihi addoomankiisa quusashadooda. qunuud yacnaa quusasho cibaadii addoomankiisa ay quustaan. iyo wa qurbin dhowaan ay dhowdahay khayarihi isbedelki. qofku waa imtixaanaa, xanuuno iyo cuduray dhibaataa haystay, cabsi iyo baahi abaaraa jirtay. marka ayadiioo la yaabayo isle dadkan qoomkan markaan ka kici maayaan a ilaahay subxaana wa tacaala khayr ku sameeha, caafimaadkeena, roob la-aantii roobkeena, wixii qofka dhibaatada haysto dhibka ilaahay ka qaadaa, colaaddii amni ku bedelaa. marka cajab wuu la yaabaa rabbunaa rabbigeen min qunuudi cibaadi addoomakiisa quusashadooda. wa qurbi dhowaan ay dhowdahay khayarihi macnaha bedelkiisii. yandur wuu eegaa ilaykum xaggiina aaziliin xaalaatiin kuwa ciriiriyoobay, aaziliin xaalaatiin kuwa ciriiriyoobay, khaanitiin xaalaatiin kuwa quustay. qofkaasi dhan ina ciriiriyoobo quusto, markaasuu fayadullu wuxuu ahaadaa rabbigeen yadxaku mid ku qoslo, yaclamu wuxuu og yahay anna farajakum farajkiinu khariibun inuu dhow yahay. farajka codka dhibkaan aa ku jirtaan farajkiisu inuu dhow yahay ayuu ilaahay cilmi u leeyahy oo og yahay. marka xadiiskan wuxuu sugayaa ihbaatu alcajbi wadaxki, ilaahay subxaana wa tacaala inuu yaabo haddana uu qoslo. cajabka marka waxay noqotaa laba midno, laba shay ayay noqotaa. midda koowaad oo ah qofka asbaabtia ka qarsan, shay dhacday ama waxaa dhacay, wixii dhacoo la yaabay, alla waxaa maxay ku dhaceen, see ku dhaceen. qofka marka wuxuu ku baraarugay xilligaa waxay dhaceen, laakiin waxa ka dambeeyey iyo waxa soo socday midna war muusan ka helin. kaasna ilaahay subxaana wa tacala arrinkaas maahan. limaada? ilaahay subxaana wa tacaala laa yakfaa calayhi shayun fi lard walaa fi samaa. shay walba cilmi uu leeyahay, waxna kama qarsoona. wuu ogyahay wax walba masiirkooda iyo farajkooda iyo xilliga dhibaatada ka baxa, intaba waa ogyahay. laakiin rabbi looma nisbeenaayo. cajab kalaa jira marka. midda labaad waxaa weyaan an yakuuna sababa fii khuruuji hada shay. wuxuu ilaahay og yahay dhibkan wax haysta ama cajabkan ninka qofkan wax ku dhacay wuxuu uga bixi lahaa siday ugu dhow yihiin oo kaleeto. qofaad og tahay inuu saacado ka bacdi hanti heli doono, laakiin maanta faqiireh oo lacagaad fara badan meel u taallo, in loo sheeg basay ugu dhimantaha waa la yaaba. waxaa leedahay ninkan lacagta haysto ama lacagta soo socoto, saasoo kaleeto waa lagu mithaali karaa. marka ilaahay wuxuu og yahay qof walba masiirkiisa iyo wax meesha u dambeyso. addoonkiisa marka saasuu ula sii yaabaa, iyo quusasho oo quustay oo isilaalele markaan tan tii laga kacayo maahan. marka cajab wuu la yaabaa rabbunaa rabbigeen min qunuudi cibaadii addoomankiisa quusashadooda. iyo wa qurbi dhowaanshaha ay dhowdaha khayarihi taqyiirka ku imaan ama bedelka ku imaan lahaa. yanduru wuu eegaa ilaykum xaggiina aaziliin xaalaatiin kuwa ciriiriyoobay, aaziliin ciriiriyoobay, khaanitiin xaalaatiin kuwa quustay. fayadullu wuxuu ahaadaa rabbi yadxaku mid qoslo, yaclamu wuxuu og yahay anna farajakum farajkiinu khariibu inuu dhow yahay. xadiiskan waa xasan sanadkiisa, saxiix ma gaarsiisana, laakiin xadiis kaloo saxiixayn ku jiro oo rabbi oo ku tilmaamaya cajabka iyo layaabka. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rabbi wuxuu la yaaba aqwaaman qolo, markaasoo qoladaasoo lasoo qabqabsaday, katiinado lagu soo xiray, loo kaxeynaya xagga jannada, ayagana walxaal ay yihiin kaarihiin kuwa karaahsanaya. suurtagal ma taha qof janno loo kaxeynaya ee la silsiladay ee karaahsanaya? adduunkay ka jirtaa. nacam, dadka muslimiinta markay gaalada weeraraan oo islaamihii iyo caruurtii iyo dadkii lasoo qafaasho oo beledka muslimiinta la keeno, ay diintii fahmaan, macaankeeda macnaheeda fahmaan, iyo ilaahay cibaadadiisa, kabacdi ay diintii qaataan. laakiin marka kow guryahooda laga soo bixina ayagoo gaalo ah
oo muslimiinta gacantooda soo galaysay aad ay u karaahsanayeen katiinadaha lagu xirayo marka xadiiskaas cajabu rabbunaa rabbigan wuxuu la yaabaa ilaa aqwaami qoladaasoo loo kaxeynayo ayagoo katiinada ku xiran jannada xaggeeda wal xaal ayagana ay kaarihiin karaahsanayaan marka xadiiskana waa xasan waa sanadkiisu marka waxaynu ka faa'iideysanaa xadiiskan ithbaat in ilaahay subxaanahu watacaala cajab uu yaabo cajaba rabbuna min qunuudi cibaadi ilaahay la yaabo addoommadiisa quusashadooda qofka waxaa le dhibaato walba ku dhacdo inuu quusto lama rabo limaada farajkaaga mar walba imaa waa dhow yahay ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi fa ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra mar walba culayskaa horeeyo fudaadkaa dambeeyo marba haddaa aragto culays iyo maxnad iyo imtixaan natiijada waa dhimantahay waxyar sug xadiiska nabiguna wuxuu aha calayhi salaatu wasalaam waclam ana nasra maca sabr ogaaw guusha iyo galladda waxay la jirtaa markaad sabartid wa ana alfaraja maca alkurb farajka wuxuu imaadaa markaa kurbootid wa ana maca alcusri yusra culays haddaa aragtidna fudad ayaa ka dambeeya qofka marka inuu quustaa lama rabo waxaan kaloo ka faa'iideysanayna xadiiska inaan ka digtoonaanaa qunuudka raxmadda ilaahay laga quusto waana kabaa'irta waaweyn ay ka mid tahay qofka inuu naxariista ilaahay ka quusto ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi qaala waman yakhnud min raxmati rabbihi ila daaluun waa kuma qofka ka quusanaya naxariista rabbigii ilaa qof baadiya mooyaane iyo qaala tacaala walaa tay-asu min rawxi illaah inahu laa yay-asu min rawxi illaah ila alqowmu alkaafiruun ha ka quusanin ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa kama quusato naxariista ilaahay cid kale ilaa qowm gaalaa mooyaane qofka mar walba xusnu dan ilaahay subxaana watacaala yaraani wayaclamani wuu arkaa wuuna maqlaa ilaahayna faraj ii keeni doon inaad tarahe marka midda ugu horeysan ka faa'iideysan alcajab ilaahay inuu yaabo athaani qudratullaahi ilaahay awoodiisa oo aan kala baxnay wa qurba khayarihi inay mar dhow arrintaa hadda aan ku jirno ay macnaha isbedeli doonto oo taqyiir ku imaan doono marka waa qudra ilaahay awoodiisa cariirigii iyo waasacnimo uu keeni doono midda labaadaan ka faa'iideysan waxay tahay annadru in ilaahay subxaana watacaala addoomankiisa soo fiirinahay eegmo yanduru ilaykum midda afraadan ka faa'iideysana waxay tahay addaxku in ilaahay subxaana watacaala uu qoslo oo fa yudilu wuxuu ahaadaa yadxaku mid qoslo khaamisan waxaan kaloo ka faa'iideysanay alcilm ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa yaclamu ana farajakum qariib ilaahay wuxuu cilmi u leeyahay ogyahay farajkiina inuu dhow yahay oo qariib uu yahay xadiiska ku xiga marka waxaan ka faa'iideysanayna ilaahay subxaana watacaala inuu lug loo sugo rajul iyo qadameyn loo sugo hal lug isleh lug ilaa loo sugo waquuluu qowlka nabiga sala allahu calayhi wasalam laa tasaalu ka zuuli mayso jahannamo yulqaa in lagu tuuraayo fiiha dhexdeeda